soo dhawaada saaxiibayaal kuna soo dhawaada kanaalka Calm Technology waa markale iyo muuqaal cusub ma tahay qof xiiseeya barashada luqadda Ingiriiska sidoo kale ma kugu adag tahay barashada luqadda Ingiriiska haddii ay jawaabtaadu haa tahay maanta waxaan ku hayaa application ka caawin doona inaad si fudud ku barato luqadda Ingiriiska adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada haddaba waxaan ku leeyahay haddii aad fahmi jirin macalinka Ingiriiska waa kan macalinkaaga cusbaaye ku soo dhow muuqaalka oo faahfaahsan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir adigoo kanaalka subscribe dhahaya waayahay haddaba waxaad soo degsan application-kan halkan noo yaala Elsa Learning English Speaking application-kaas ayaad soo degsan telefoonkaaga ayaad ku soo shuban markuu application kugu soo dego open ayaad soo odhan open markaad soo tiri application-ku sida tan ayuu kugu soo furmi doonaa haddaba waxaad ku dhifan get started ayaad ku dhifan get started ma aad ku dhifato waxaan nagasteed odhan xaggaas ayaad wadi nagasteed sii odhan waxaad doorataa uu kuri luqadaada adigu ku hadasho dooro ayaa lagu marka waxa macnaha laga jeedaa luqadaada hooyo ayaad dooranaysaa haddaba meelahan ay ahayd ka raadin Soomaali ayaad ka raadi way ku jirtaa hoos ayaad u digi doontaa halkan waa tan Soomaali waad raadi waad ku dhifan markaad ku dhifatid page-kan ayuu ku geerin doonaa haddaba dhowr su'aalood ayuu ku weydiinayaa okay haddaba qaybtan waxa lagu weydiinayaa qaybta doonaysa inaad ka baratid qaybteed ka baranaysaa ayaa lagu marka waxaad ku dhifan adigu education ayaad ku dhifan saddexdan qaybood ayaa Englishka sida caadada ah laga bartaa waa beginner intermediate iyo advanced saddexdaas qaybood weyn saddexdaas qaybood qaybtan u sareysa hadii aan ku sharaxo waa beginner ma waxa tahay lagu leeyahay qof beginner oo hadda bilaabaya luqadda inuu barto ma intermediate ayaa tahay qof dhexdhexaad oo luqadda yara garanaya sida akhriska ama qoraalka yara garanaya laakiin wax ka yar dhiman yihiin qaybtan advanced-ka ma waxa tahay ayaa lagu leeyahay qof luqadda Englishka ka dhisan waxa in lagu beeriyoon raba haddaba waxaad oran doontaa hadaad beginner tahay waxaad oran beginner oo imika bilaabaysa hadii kale intermediate oran hadii aad Englishka yara wada garanaysana advanced ayaad oran oo aad doonaysid inaad kor usii qaadid luqadaada haddaba hadii aad beginner tahay beginner ayaan hadda ku dhifanayaa balila beginner ayaan ku dhifanayaa haddaba xaggan waxa lagu weydiinaya waa su'aashii u dambeysay waxa lagu yiri what is your practice goal waxa lagu yiri marka waqtiyada doonaysid inaad ku bixisid inaad baratid luqadan ma 15 mir ayaad ku bixinaysaa ma 15 mir ayaad ku bixin ma waxaad ku bixin 20 mir saddexdaas ayaa lagu weydiiyay kii kugu filan ayaad dooran doontaa tusaale 15 daqiiqo ayaan ku dhifanayaa haatan waxaan taaganahay su'aashii u dambeysay halkan waxa lagu leeyahay when is a good time waxaad doorataa waqtiga ugu fiican aad rabtid inaad baratid luqadan waqtiga aad rabtid ka dhigan waxaad ka dhigan 9 iyo barka 10ka midkii aad doontid ka dhigan midkii aad doontid marka ka dhigtid next ayaad sii odhan next marka jira hadda waa inoo sameeynaya haddaba halkan uu ku geeni doona xagga wuxuu ku leeyahay lacag bixi laakiin inagu lacag ma baahnayn qayb free aan u baahnay waxaad man xaggan hoose ay ku qoran tahay continue with limited plan halkaas ayaad ku dhifan halkaas maraad ku dhifatid halka wuxuu ku leeyahay email gali laakiin skip ayaad iska odhan calaamada sare ayaad ku dhifan inta kadib wuxuu ku yeeni doonaa wajiga noocan uu ku yeeni doonaa xagan u sareysa waxa ku qoran afartan option xagan u sareysa practice daily lessons waxa lagu yiri waa 10 maalin la ah sidoo kale improve pronunciation waxaad kor u qaadaysaa qaabka ku hadalka Englishka halkan oo kale saddexaad waa study by topic inaad baratid topicyada sida loo diyaariyo halkan kalena a certificate waxa weeyaan inaad shahaado qaadatid marka intaas oo dhan markaad soo martid ee shahaado qaadanaysa shahaadadana xagaa hooseysa tan u sareysa practice daily lessons tan ku dhifto bal la fiir hadaba halkan waa lesson 1 ayaad ku dhifan haddaba waxaad oran allow ayaad oran si aad codka ugu ogolaato allow ayaad oran start ayaad oran start markaad dira press the speakerphone icon to hear me speak hadda halkan wuxuu kelmadaas ay kugu dhawaaqayaa miss ay kugu dhawaaqayaa qaabka kugu dhawaaqo bal u fiirso miss your turn press the microphone icon and then speak the phrase haddaba waxa lagu yiri aadna ku dhawaaq si lagaaga saxo ayaa lagu yiri halkan mikrofoonka halkan ayaad ku dhifan kadibna waad ku dhawaaqi waa laga saxaya marka hadaad qalado waxa lagu sax bal hadaan tijaabinaya ilaaga
hadda saad u jeedaanba excellent ayaa la yidhi waad saxday ayaa codkaagina halkan aad ka dhageysani miss, waan saxay hadda miss bal iyadna ila eeg miss ayaa la hada wax qalday ayaa laga yaabaa inkastoo in luqadan yahay lesson 2 waad ku dhifan qaabkaas ayaad u baranaysaa luqadan English. do you like giving or receiving gifts? hadda wuxuu ku yiri do you like giving or receiving gifts algaas intaas ayuu ku akhriyay. I like both. I always feel that exchanging gifts is a nice way. hadda halkan sare u jeedid halkan waa kelmadii lagu dhawaaqay halkan waa tusaale weeyaan tusaale kan tusaaleeysi weeyaan qaabkaas aad u baranaysaa marka adiga ayaa waxan oo dhan tijaabin doona wad ila soo eegi doontaa insha Allah. halkan waxa lagu yiri WhatsApp group oo ku biiri kartaa groupka WhatsApp ka si aad u barid qaab fudud ayaad luqadda Ingiriiska runtii ugu baran kartaa. muuqaalkan inaad waxyaabo far badan ka faa'iideeyaan filaya muuqaalkan hadii aad ka heshay haylaw inaad like saarto sidoo kale hadii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir adigoo kanaalka subscribe dhahaya intaan muuqaalkan iyo muuqaalka xiga ku kulmayno waxaan idinkaga tagayaa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.